بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka koobaad waxaan ilaahay mahad u jeedinaynaa ilaaha halkan aafajiyay ee isku keenay waxa weeyaan magacayga waxa la yiraahdaa Xaaji Muuse Maygaag Barre waxaan ahay duqeytida Shiniile ee gobolka City gaar ahaan degmada Shiniile waxaan nahay goortida ogaaska ayaan nahay sababta maanta halkaan ugu yeedhanay saxaafadda aan ugu yeedhanay ayaan sheegayaa taasi waxa weeyeen dhibaatada ka socota annaga iyo walaalahaya jaarka aan nahay dawlad deegaanka Anfarta dhibaatada joogtada ah ee ka socota ayaan halkan ka cadaynaynaa dhibaatadaasi waxa weeyeen waraaga waxaan leenahay waxay dhibaatadaasi saddex qodob baan kaga hadlaynaa kow dhibaatadu waxa la isku haysto waa kow laba waa qaabka iminka u dambeeyay dagaalada u dambeeyay ay ka socdaan waa halka ay ka socoto dhibaatadu iminka ugu dambeynta iyaan cadaynaynaa waxa weeyaan dhibaatada joogtada waxa weeyaan waa dhul kamida dawlad deegaanka Soomaalida oo degan yihiin waligood dad Soomaali oo ciisa Soomaalida ciisa ka ay degan yihiin way waxa kamida saddex qabalo oo lagu daray qasab si xooga ay dawladii hore ay ugu dartay dawlad deegaanka Anfarta iyadoo xoog lagu qaaday dadkii deganaa iyadoo saddexda qabalo ayna deganeyn shakhsi Anfari ay deganeyn oo walaalahay ayna deganeyn si qasab loogu daray halagu daree 2007 ayaa si qasab laga dhigay inay ka mid noqdaan dawlad deegaanka Anfarta halagu daree waxa loo qabtay haba yaraatee wax loo qabtay oo horumara ma jirto sida dugaaga u noolyihiin sida dugaaga iyagu noolyihiin waxba looma qaban iyadoo sidaas ayuu isbedel ku dhacay isbedelkani ayuu dhacay isbedelkan maanta dalka Itoobiya ka dhacay waxaan moodaynaa inuu ummadoo dhan u dhacay kii xidhnaa baa la soo daayay kuwii dibadda oo cararaa soo noqday nin walba xuquuqdiisa u helay saddexda qabalo wali xuquuqdoodii ma hayaan haba yaraatee sidii u bay waxaan leenahay saddexda qabale ha helaan xuquuqdoodii dalkii ay u dhasheen iyo dadka ay ka tirsadaan ka mid noqdaan baan leenahay waxa kale weeyeen dagaalkan iminka qaabka u socdo dagaalku iminka halka uu ka socdo waxa weeyaan saddexdii qabalo ma saddexdii qabale ee sida qasabka lagu wareejiyay kama socdo dagaalku wuxuu ka socdaa waa dawlad deegaankii kilka shanaad waa laba degmo oo ka socdo dagaalku degmada Afdam qabalayo kamida iyo degmada Gablelu qabalayo kamida ayuu ka socdaa waxaana wada dawlad deegaanka Anfarta iyo wada liyu booliiskoogiiba wada oo laynaya dadkii dixii ay ka cabayeen oo dadkaasi ka cabayay oo ku noolaa waxa way reemiyigii liyu booliiskii baa jooga qofka lala dhacayna waxa weeyaan waa Zuu iyo Baro ayaa lala dhacaya waxa la dhacayna waa dawlad deegaanka Anfarta liyu booliiskii way waxaan leenahay walaalaanahay waan wada dhalanay dad islaamaan nahay jaar baan nahay waan isguursanaa waxaan leenahay qaabka dagaalkooda dawladda deegaanka Anfarta ha joojisan leenahay dadkana biyaha u sii dayso
hawsii dayso waxaan kaloo leenahay Soomaalida waxaan leenahay halkay dowladda ha joogto dowladda kilka shanaad ee dowladda Soomaalida maamulkeeda dowladeeda iyo dadka shacabka Soomaalida shacabka waxaan leenahay dalkaasi inuu dad Soomaaliyeed yahay halka dagaal ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida inuu yahay inaad ogaataan inaad aragtaan inaad daraasad ku sameysaan inaad soo aragtaan baa ka caawiyaan ka codsanayna wali cid aragtay ma jirto maamul Soomaaliyeed ma arag Soomaalida kalima arag ciise afar bay sameynaysaa oo basheeda ka maqlaan waxaan ka codsanaynaa inay soo arkaan dhibka halka ay joogto meesha la laynayo dadka la barakicinayo dadka suugiyo barooga la dhacayo inay soo arkaan baa ka codsanaynaa waxaan kaloo leenahay shirkii shalay ka dhacay Addis Ababa labada madaxweyne iyo odayaasha iyo labada ogaas ay ka qayb galeen wasaaradda nabadgelyada wasiir ku-xigeenku uu qabtay waxaan leenahay shalay dhacay waan taageersanahay si fiican baan u taageersanahay go'aanadii ka soo baxayna waan taageersanahay ha lagu dhaqmaan leenahay ha lagu dhaqmo ayaan leenahay ha la tixgeliyaan leenahay xabadda ha la joojiyaan leenahay go'aanka ay qaateen xabadda ha la joojiyo dadkan biyaha looga kaco ciidanku ha uga kaco wadadana ha la furo dadkana biyo dadka barakacayna biyo booyado ambalaasyo wixii bulshada dadku ku noolaanayay xuquuqda bini'aadamka uu leeyahay hal la siiyaan leenahay waxaan kaloo taageeraynaa go'aanka shalayna saabaan taageeraynaa waxaan kaloo leenahay walaalaha iyo walaalaanahay xaqiiqiyan walaalaanahay dowladda deegaanka Canfarta waxaan ka codsanaynaa dagaalka inay joojiso dagaalka inay joojiyaan ciidan booliiska inay ka qaadaan si degdeg inay u qaadaan ayaan ka codsanaynaa waan ka codsanaynaa inay ka ceshaan oo ay dadka masaakiinta ay ka daayaan baan ka codsanaynaa waxaan kaloo leenahay waxaan u bixinaynaa baaq annagu baaq nabadeed baan bixinaynaa colaad ku dhawaaqmayna dad waaweyn baan nahay culimo diinka la isku geeyo odayaasha la isku geeyo odayaal dhaqameedka la isku geeyo ogaasyada la isku geeyo si nabadeed ha lagu wada hadlo ayaan leenahay dhulkaasina wax moromo leh maaha moromo leh dhulkaasi waa dhul Soomaaliyeed waa dhul kilka shanaad ka mid ah waa waradaha afdameed iyo waradaha gabalalow iyo dagaalkaasi ka socdaa ha laga joojiyo iyo booliisku ha ka baxo intaasna halkay ku soo koobay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بقى معضل معضل كوبات إلهي بقى نعلن إياه مد اللبات اسمنا شيئا هي عدة ماركت ورصحافة كمان تود وأريني مهد علينا سيدا ماركت عطسي يجي أطنوبه ماتين waxaan leenahay arrintaasi uu ka hadlay xaaji muuse hortay ayaan wax ku daraya aniga waxaa la yidhaha xaaji cali muuse xasan odayaasha maaragtay duqeyda ayaa maaragtay ka mid ahay gandaha ogaas mustafe arrintani gelin bay jirtay siduu xaaji muuse ma sheegay waqti dheer bay jiitantay dhibaatooyin badan baa dadka ku soo maray waa dhulka Soomaaliyeed weeyin waxaana degan beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ciise la yiraahdo degan waxay ahayd waa 3 degmo Macays Afdam iyo Gebno weeyaan maaragtay dhulka ay dhibaatooyin ka jiraan qabalooyin ka mid ah Garba Ciise iyo muxuu ahaayay cundufo iyo cadayti wey iyo qaybta maaragtay gabdhow oo dhinaca galbeedka hoose ah qabalayo la yidhaaho cadayle
jiijaale ceelasha ay kamid yihiin iyo qabalaayo ay kamid yihiin dadku ay degaan wey waxa weeye markii hore dhibaatooyinku dhinacnay u badnaayeen wax badan bay ka socdeen dhimashaa dhacday luuga kusoo duulo magaalooyinka lagu soo duulay waa la ogaa wixii ka dhacay waxaad leynayay dadka liyuugay ahaayeen mar hore duqayda maaragtay cafarta iyo duqayda maaragtay gobolka city ee ka tirsannahay waan isku tagnay dowladda isku kageysay oo wasiirka amniga ayaa maaragtay la kulanay waan wada hadalay waxaan ku wada hadalay dadkaay waa dad walaalo ah muslim ah jaar ah weligood ag yaalla dadka hadda goora baadiye waxay laysyeeleen hadda arrintii waxay noqotay arrin siyaasadeed waxaan ku wada hadalay in la joojiyo maaragtay xabad joojin dadka maaragtay dhibaatada laga joojiyo liyugana laga qaadaan ku ballanay wasiirka amniga maaragtay na dhexdhexaadinayay waa laga hadlay adeecadda oo waa la ahaa joojina lagu heshiiyey heshiiskii sidaa ahaa walaalaha yaa jabiyey way soo duuleen dadka shicibkaabay ku soo duuleen way laayeen dixihii ay maaragtay ay yaaleen way ka baxsheen aada iyo aad buu u burburay dadkii dad iyo dunyada waa la burburay dhibaataha ku dhacday xadaraalku waxuma qaban dowladda deegaanku hadday wax ka qaban lahayd waxa maaragtay arrintaa kale ee had iyo jeer walaalaha yaa cafarta hadalkooda maaragtay yaa sii jiya marka si qaldan baa loo arrintaa tallaa dowladdii hore ay u qaaday in dadka xoog lagu raaciyo maxaanku dhahay cafar aada iyo aad yaa dadkaa loo maaragtay loo afduubay qasab baa lagu raaciyey sidaa waxaajiga horeba sheegay wax loo qabtayna ma jiro waktigan isbedelka yimiday ayay dadkii doonayaan maaragtay inay helaan matoodii helaan waxaan leenahay haddii aan duqaytidii gobolka city ama deegaanka soomaalida haddii aan nahay dadkaa waxaan leenahay mabtigoodii ha helaan etoobiyada meelo badan oo horey la isugu qabsadaa jira firadi baa lagu kala baxay odayaashii had iyo jeer bukaan loogu imanayaan ka mid ahaa firidhinka ha la naga qaado cod ha la naga qaado waxay ahayd maaragtay sida ay lagu kala baxay ee xuduudaha dadkii kale ee soomaalida oromadu ay ku kala baxeen han lagu kala saaro ayaan inta badan ku hadli jirnay waa la diiday dowladdii hore ee maaragtay tan ka horeysay ayaa si qasaba dadkaa u afduurtay halkaa u maraysay aada iyo aad bay dadkaan biyo ma helaan tacliim ma helaan maxaan ku dhahay caafimaad ma helaan 27 sanaba halkaasay ku afduuran yihiin iminkana waxaan leenahay heshiiskii shalay ay labada madaxweyne iyo ogaas mustafe iyo suldaanka maaragtay canfarta iyo intii la joogtay wafdigii halka ay ku wada hadleen aada iyo aad baan u taageersannahay saddexdii qodob ee lagu wada hadlay in kow xabadda la joojiyo taa aad baan u taageersannahay waa in sidiisii loo fuliyo sida u dhaqsaha badanaan anaguna maaragtay ugu diyaarnahay inaan maaragtay arrintaa u fulino waxaan leenahay dowladda federaalka ah in ay dadka maaragtay nabadgelyadiisa iyo inta xalkooda meel la dhigayo inay iyaduna ogaato oy ilaaliso oy maaragtay nabadgelyadooda ilaaliso horumarka iyo biyaha dhibaatooyinka jirana ay wax uga qabato ayaan doonaynaa maaragtay soomaalidan waxaan ugu baaqaynaa arrintaasi soomaali hadday guda joogtay hadday daba joogtaba yaa ayaan arrintaa laga aamusin deegaankuna waa inuu qaybtiisii ka qaato ayaan kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مركو روحان سلام يا بعض الصحافة مركو روحان سلام يا دولة الدينة كالصومالية إثيوبيا مركز صدحات روحان سلام يا وغاس مصطفى يدقيد إيسا اللي يرتى شرفت بدن إنه لا فرده والد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يبارك ميي علي كل هذا الماضي يا أوصو أنتي يطلقوا كدالة ولا الله يبارك ميي أنتي أنا ولا هيبا واحد من العلوش يسووه يسوي كتير هذول اللي كهضوا إنه كان عم بقروح بدن سديتني يصدق ذي جنبوت لما تنكيني مركي دولتي BRDF هاي لورك قسمتين دركي كعاي واحد عليها سقاشر يا حبب سقاشر يا هالكي
dastuurka Ethiopia markii la dejinayay in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaarihii markaa xilka hayay qoomiyadaha badan ee Ethiopia cid kastaba ciddii xal u ah wixii xal u ah ee qoomiyad kastaba ay ku qancayso in la soo dhigay Soomaaliduna ay inta badan ka qaadatay maxay dastuurka dejintiisa hadda iminka anaga waxaan rabnaa waxa weeye dastuurkii sidaa ahaa malaha dad buu qabtay Ethiopia kale wax lagu la dhaqan yahay ma arag annaga beesha aanu nahay Soomaaliyeed iyo dastuurkiina qabtaa sidii walaalahay bay u sheegeen cid kasta oo meel ku maranta ra'iisul wasaare wuxuu yidhaahday xilliga qoomiyad kastaba meesha ay taaleen ugu yimiday inay taalo ugu anshaxay dadkiina waa la qaatay tii laguma dhaqmin waxa soo baxday in dhul badan oo Soomaali leeyahay si khaldan lagu wareejiyay maxaa ka mid ah jinacsani bile ma ayso diri dhaw oo hadda iminka kolka iska ahayd meel qoomiyad ay leedahay iska ahayd oo iminka laga dhexdhexaad oo meelaha u dhaxaysa Ethiopia leeyay markaas anagu waan ku qanacsanay waxa la yiraahdo cod baan inaga qaatay baan oran jiray afreedam hadda tan saddexda qabale ee walaalahay hore u sheegeen annagana iminka cudurdaarkeegu nahayo waana lagu diiday in cod laga qaado oo dadka maxay ahaydey sida kuwa horeba dee cod baan inaga qaatay oo loo yiri in loogu qanciyo oo cod loo qaado waa la diiday waxay tiraa Soomaalidu nin islaantaada doonaya haddaad tiraahdo gabadheeda qaado islaantu dee way weynaato dhowr iyo 10 carruur dhashay gabadheeda uubka qaado iyada iska daa haddaad tiraahdo laguma karo meel buu u socdaa xaaskaas uu taabtan maahayna ma samro waxa dowladdan Ethiopia iyaa dhulkan iska doonaysay walaalaha iyaga canfartaan waxaan leenahay waxaa la yidhi saddex nin makaana qaano hadduu ninku rabbi yaqaan ahayn rag yaqaan ahayn kuma yaqaan ahayn kan qaba wey walaalaha iyaga canfarta waan isgaranaynaa waxaan leeyahay canfar iyo Soomaali horta iskuma dhigmanto canfar iyo ciise marka la leeyahay wax isku dhigma maaha waxa isku dhigmo isbarbar yaala waa canfar iyo Soomaali la meel joogaan dadku wuxuu yiraahdaa ciise waxa islaynaya canfar maaha ha ahaato laakiin sida iyagu haystaan waxyaabo badan bay sheegaan iyagu way naga been badan yihiin way naga politik badan yihiin anagu politiga ma naqaano beentana ma naqaano walaalahay waxaan leenahay ilaahay taas ka baqdaan dadka islaamka dhiiggiisu daadanayo dhiigii ilaahay xaaraantinimeeyay culumaad leedihiin oo caamiyaad leedihiin aabaad leedihiin oo ogaas baad leedihiin oo madaxweynaad leedihiin war dadkeena hanu talino isku deegaan baanu nahay dad iskugu dhow baan nahay isku wadan baan dad islaan aan nahay walaalahay waxaan leenahay sida anagu dadkeega aanu la hadlayno waa walaalihiin waa islaan aanu leenahay idinkuna inaad noola qaadataan baan idiga codsanaynaa idinkana dowlad deegaankana waxaan leenahay kolley waxaa la yidhi labadii dee laba nin oo gurigii sodooda u hargashay mid baa yarun guri baasaabaa li mid baa yidhi sodoodan xaggay noo dhaadhaafaysa in wax hore loo sii doono kii kale yidhi waxay haysan wayba noo haabanaysaa waxay haysan wayba noo haysa waxay helayna wayba noo haabanaya ha iska sugno dowlad deegaanka waxaan leenahay dadkaasi waa dadkiinnii waxba idigama farayno inaad idinkuna aad intii waajibkiina ka qaadataan annaguna dhinacayaga waajibkeega aan ka qaadano sidaa nabadgelyada u sugi lahayn maxay ahayday go-aankii dee walaalahay baaba dhameeyey wixii shalay lagu heshiiyeyna annagoo tixgelinayna hadda waxaa annaga iminka wax laba dowladood iskula dagaalanto oo hub ahoo madaafiic ahoo wax shacab iskala hor yimaadaanan ahayn ayaa lagu garaacayaa reerkii war waxaas inaad ka waantowdaan walaalahay canfartaan faraynaa in biyihii dadkii loo sii daayo walaalahayana dowlad deegaankana siday hawsha de kolley dee laxibo googeega biyo kalama harkagtay way ku jiraan say ku jiraan allaha ku garab galo annaguna nabadgelyada ayaan ku dadaalaynaa saasaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu